soo dhawaada daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badano. Halkani waa La Soco Channel. Walaalayaal, waxaan idin ballan qaadnay inaan idin soo gudbinayno waxyaalo badan oo muhiim ah. Waxa ugu muhiimsan u dambeeya halkan waa horudhac iyo isbarasho. Maantana waxaan soo qaadanaynaa qabiilka isku dagaalo gabdhaha markii laga doonayo reerkooda. weliga ma maqashay dagaal quman ayaa ka dhacayo, isfarasaar ayaa ka dhacayo. waa dadka gabadhaas caashaqay ee jecel. Soomaalidu haday jirto gabadh aad u qurux badan oo rag badan ay soo doonayaan, qoyska gabadha ay ka dhalatay waxay markasta la jeclaadaan ruuxii maal iyo hanti badan leh, ayagoona fiirinaynin gabadha meesha uu qalbigeedu raacsan yahay. haddaba Soomaalidu haday eegaan ruuxa jeebkiisa oo gabadha duca iyo habaar la hordhigo marar fara badan. waxaa jiro qabiil Afrikaan ah oo dego galbeedka wadanka Kenya oo lagu magacaabo qabiilka Pokot. qabiilka Pokotka waxa ay sameeyaan fagaaro. labada wiil mid kasto iyo saaxiibadiis waxay soo qaadanayaan ulo dhaadheer. waa la istumi, waana la isgaraaci. kolba ruuxii usha u adkaysan waayo oo meesha ka cararo ayaa gabadha ku waayo halkaas. ruuxi reerka u hadhi boqorada la isku dirarayo taas gabadhaas weeye. dagaalkiina wuu bilowday, laba koox ayaa loo kala baxay iyo labadii nin ee gabadha u tartamahayay. aan ku jecelahay iyo habeenkii ayaan riyo kugu arkaa iyo biyahan kaa dhex arkaa iyo ma jirto meeshan. dad gabadha jeceshahay fagaarahaas ayaa lagu kala bixi. fagaarahaas ayaa lagu kala baxaya. weli dhaadheeraa baa la soo wada qaatay, ruux kastana wuu hubaysan yahay. labada wiil ee gabadha isku dagaalayso oo kuwaas labadaas weeyaan. mid ayaa qaar qaawan, kana qaar qaawan, kan qaarka waxaa ka dhacay shaatiga ka dhacay. ugu dambeyn waa laga reyn doonaa. wiilka wakaas kan soke. dagaalku wuxuu socdaba ugu dambeyntii waxaa soo baxayo hal ruux oo guulaysan. ugu dambeyntii dagaalku uu dhammaaday. wiilkan wuxuu kala soo baxay dhaawacyo waaweyn ayaa soo gaaray. laakiinse dhaawaca jidhka waxaa uga daran dhaawaca qalbiga, maadaama oo lagaga reeyay dagaalkii iyo istuunkii. gabadhiina waa taas madaxa ay gacanta saaratay. waxaad moodaa waxay rabtay wiilkii laga reeyay bay rabtay. mid ka reeyay mayna rabin, laakiinse way ku qasbantahay inay raacdo. taas madaxa gacanta saaratay. waa su'aal ku socota gabdhaha Soomaaliyeed. ma kula tahay ruuxa ku dhaho waan ku jeclahay xabiibkii inuu dartaa ugu dulqaadan lahaa oo u adkaysan lahaa is-ulaynta noocan ah? alla rag badan maxay gabdho ku waayi lahaayeen. tani kulanti dambe oo wacan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. waxaan idinku boorinaynaa oo idin ka codsanaynaa daawadayaal inaad like gareysaan page-ka La Soco. waxaan idin soo gudbinaynaa
arrimo badan oo kala duwan insha Allah tacaala oo xiiso badan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.